وهو ور في عن وصول وينا بقول كيف بقول الوضع كان عن قحلة قلنا أنا بذكر دبعت الله رسيد الوضع كان حصلوا لي مقالة مقدشة بالعادة هذا يدقنا شيء هذا عن كود الشقينا ورجينا بإذن الله تعالى دبعت هذا واحد مقالة مقدشة وكان وهوها لبسنا أو عن الشرع جمالي كقطع لجرين أو لا دمعي إلا صاروا ما ممكن هذه هات تقول الشعبي برلماني هذه هات إكسكتيف هاس أي مارك الديدين إذا ما قلب بالسنة مالوا البيجوغان كو الديدي أو كديدي لبسنا إنه قدروا هي كو أمرك الدولة مركز قاطي أو إلى لنا أي مالي حياة وما تبريم كوها الدولة دبا وعارف أنا أمهات عيو لما أنتي وحاكش قيسين مقالة داني إنه يسرد بعد كدعد إنه دقال سي فوقاني إن ودن كان وسن كفين ودد الصحراء أهد وسوق هذا لما تكسر ولا صوت أيا كودا الشقيسين حابو دبل وشدنا هنا ما أعلن هيننا وحا هذين تير كم من سنة إلى لي ديمقراطية هي الدولة لماذا هذين وإذا كما تعلنا هنا هذا نوعا ربنا هنا كودا الشقيسين أنا كشقيين وسياسيين كشقيان إن ودن كان الشرع كان وصريه دستور وصريه دور شاء الله نقضه مدحوينها وقت يستنى ماذا وتلمامي مانتا وكما هتسيهي ما أنتم وحي قدام بأيه وحارجين هنا رئيس الوزراء روبلي لحكومتيسا هذه دور شاء ديبو نعضو هذه وحكاها اللابان إن أيها لغو حساب تمي دون سياس درتد وحاربنا إنه ددجيان ويريتان كلو يرايو مامولادي ولو وحاربنا إنت عن عيد لقارين إنه مامولادي تي ماذان عن صحيان وحي رالها ماري مركاك الشاق انت 17 سبتمبر صحيح هذي انت عن لوغن مارمينينبا وحاربنا سيده u dhaqsan badan inta la isku yimaado intaan ciidda la gaarin in la ansixiyo doorashada loo dhaqaaqo oo waddankaani nabadiisa laga shaqeeyo waddankaani nabadiisa iyo isla jirkiisa iyo quruxdiisa waxay ku jirtaa in doorasho la aado oo qof walba Soomaali ah hadduu xildhibaan rabo hadduu madaxweyne rabo uu sugo tookadiisa kii soo waayo waxa iman doonto in 4 sano kadib uu sugi doono waqtigiisa uu qaadan doono saas darteed waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad inaan tilmaamo aniga ka murashax aan ahay ama ka xildhibaan ahay ka siyaasi ah waxaan soo dhaweeynaa in loo noqdo heshiiskii wada rogolka ahaa sida uu dhaqsi badan doorasho ay dhacdo haddii madaxweynaha maanta uu gartay oo uga mahadcelinaynaa baarlamaan golaha shacabka oo shalay jidkaas qardajeexa suubiyana inuu maanta uu ka soo noqdayna waa uga mahadcelinaynaa waana mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم. أرد مركور وحاصل صاحب داير أمين جسوي فرصة. استقدوا. كرفانا الورا التحو حرتحو. يكونوا حرفان لا هذا نه. التحو لا. لما هذا نيو دي كده واحد باشي. هذا. داير أمين جسوي صاحب دي وما زي هاي. عربة مركب قوات. هنا أوهم باليد الصوماليات. ciidanka iyo siyaasiyiinta wadada badbaado qaran oo diidayay extension waxa si gooni ugu mahad celinaya bahda saxaafadda oo weerar lagu soo qaadayay baryahan
waxaan u tacsiinayaa mustaqbal media oo ay soo weerareen ciidanka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday maadaama uu kelmaddaas aad iyo aad u dhibsaday laakiin waxaan sheegaynaa madaxweynaha muddaxileedkiisi waa dhammaaday ama ha raba ama yuu rabin waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intii garatay inuu extensionku halis ku yahay dadka danta dalka iyo dadka waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha hirshabeelle oo markii u dambeeyay saxiixay inaan waddankan extension la aadi karin noqdayna meeshii uu kuwaana qaatay keligitalisku waxaan dhegaysanaynay khudbada keligitaliska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday farmaajo wuxuu yidhi sharcigii aad ansixiseen wuxuu keenay khalkhal amni wuxuu eedda ku soo wareejiyey sidaan hore idinku sheegay baarlamaanka golaha shacabku wuxuu ku eedeeyey in go'aankii ay ansixiyeen uu khalkhal amni magaalada ka abuuray maalintiina meesha waa ka sheegnay go'aankana asagaa u soo dhiibay golaha shacabka iyo meesha la yidhaahdo guddoomiyahooda mursalna asagaa soo adeejiyo yidhi ordaha 2 sano igu dhufta 2 sano lama aqbali karo waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego kuwa badan baan maqlaa oo leh maaragtay nabadda hala aado nabadda qof walba rabta laakiin nabadda ninka ka shaqeeya nabad darrada waa ninka 2 sano oo sharci darra raba inuu qaato waa ninka raba beebaha dawladda Turkiga ay noogu deeqday iyo midkay dawladda Qatar noogu deeqday inuu xildhibaanada iyo murashaxiinta ku boobo oo ku dardaro haddaba waxaan rabaa khudbadiisa markaan dhageystay waxa ka cad qodobo ay tahay in la cadeeyo inay aad iyo aad u tahay waxaa muhiima in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu ogaado inuu ciidamada qalabka sida kala qaybiyey uma noqon karo commander in chief wuxuu sheegay amniga doorashada inuu wareejiyey waxa laga rabaa waxay tahay amniga dhan inuu wareejiyo sababtuna waxay tahay ciidamadii uu kala qaybiyey ma aamini karaan inuu taliyo guud commander in chief u noqdo waxaan codsanaynaa ciidanka sida uu dhan yahay ma aha kan doorashada keliya kulli inta kalena in ra'iisul wasaaraha loo dhiibo lambar 2 waxaan codsanaynaa oo cadaynaynaa oo idiin sheegaynaa inay aad iyo aad muhiim u tahay inuu qoro warqad uu ku cadaynayo amniga dalka iyo midka doorashada inuu wareejiyey si teendhada afisyoona loogu laabto midda saddexaad arrinta ku saabsan oo ummadda Soomaaliyeed aan rabo inaan u sheego dhammaanteed meel kasta ay joogto muddo kordhin dambe madaxweyne dambe waa inuusan ku dhiiran waa in ummadda Soomaaliyeed ay ogaataa in muddo kordhin sharci darra ay dhali karto 20 sano gardarra ah 20 sano kali dib intii la burburi lahaayna hadda intuu fududiyaa in la iska qabtaa fiican waxaad ilaaliseen dastuurka ciidamada ku jira sayidka hoostiisa waxaan sheegayaa waxaad ilaaliseen dastuurka waxaad ilaaliseen sharciyadda yuusan keligitalisku been idiin sheegin beer la xawsiga kelmadaha macmacaan marka aad runta la isu sheegayo wada hadalka lagu jira madaxweynuhu ha sheego tanaasulka uu afka baarkiisa ka sheegayo marka la taagan yahay golaha tanaasulka looga baahan yahay ha sheego markuu xog ku gaboobayo ma sheegayo markuu ku dhaaranayo taangiyada ma sheegayo markuu ciidamada soo diranayo ma sheegayo kelmadeyda u dambaysa waxaan u jeedinayaa ciidamada qalabka sida dhinac walba ay jiraan dalkan dastuur uu ku taagan yahay qori qof wata kuma taagna qori la soo bariyo kuma taagna mid qabiil kuma taagna dastuurka aan ilaalino dastuurka madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday hadduu 2 sano xaq u siinayana difaac hadduu xaq u siinayna ka leexo aad iyo aad baa u mahadsantihiin